بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا حرونت حزبك أود شعبك ما أنت لقى بالله وينو فرنتها حرونت حزبك أود شعبك أدي هذا ما سنتين وينو فرنتها كسر دوادا هول قلنت حرونت حزبك أود شعبك فرحد وين أيتها ما أنت إن هرتي سو استاجو مناسبة أنك هذلو وجهرين ما أنت فرنت إنه معهن محول له دونا لكن ومحاس له دونا ومدهان قف أهان يقرن أهان سادرتيد وحروانا سكوبن إن اللي وداعو عرقتيدا وجيتك إيه ملاد حسبك أو الشعب ولا ليال سيدان أغنى هاي سومالي وحي سوجر في مدة دولار وين تسيجر دون تأي بإيدن كيس وقت جالس يسوجر في سومالي آتك أفق waxay ku jirta jiilba jiil ka dambeeya inuu qoro isku dhiibkaas la isku sii dhiibo si loo hormariyo loo dhowro siiqada sooyaalka faca dheer ee Soomaaliyeed muddo hadda laga joogo nus qarni Soomaaliya waxa ka hana qaaday hanaan dawladeed oo la mid ah kan dunida casriga ah laakiin dad badan oo Soomaaliyeed waxay qabaan in himiladii laga lahaa aanan si dhameystiran looga wada gaarin sidaa darteed waxa isweydiin mudan maxayna u baahannahay inaan dhidibada ugu taagno qaran wada jira oo gaarada himilada uu hiigsanayo qof walba uu doorkiisa leeyahay sita aan ku gaarno Soomaaliya dhabtii way ku daashay qof bedela koox bedesha laakiin Soomaaliya waxay u baahan tahay aragti cusub oo ka turjumaysa baahida shacabka iyo baahida guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo hoggaan hufan oo u taagan hirgelinteeda sidoo kale markaan u soo noqono ummad ahaan isla hadalno ama qof ahaan iskula hadalno waxaan runtii xisbiga awoodda shacabka wuxuu mar walba aaminsan yahay inay muhiim tahay inaan wax ka bedelno fakarka dhammaanteena na ragaadiyey ee nabaday ficiltanka ah faca iska celi oo aan ku bedelno faca wax la qabso ana ka hirgelino maamulka dawladnimo iyo macaamilka shacabka dhaxdiisa taa waxay ku iman kartaa inay tusaale u noqoto jiilka soo koraya in aragti kala duwanaanshaha siyaasadda fakarka iyo wixii la halmaalaba ay marnaba naga hor istaagin danta guud oo aan dhammaanteen ka wada shaqaynayno waxayna ku beeraysaa jiilka cusub inay u heelanaadaan hawsha hortaalo ayagoo marnaba aan ku saleynayn qof ka aragti duwan ama qof ka siyaasad duwan laakiin hadafkeenu uu yahay in Soomaaliya la hormariyo si wada jiran loo hormariyo xisbiga awoodda shacabka himilooyinka uu hiibsanaya haddii aan si kooban u sharxo waxa ka mid ah kow ilaalinta jiritaanka iyo madax bannaanida qaranka Soomaaliyeed labo nabad iyo xasilooni ku soo dabaalida dalkeena iyada oo loo marayo siyaasad ku dhisan wada shaqayn qaran gobol iyo caalamka saddex horseedid dalkeena bulsho siyaasad iyo dhaqaale furan oo saldhig u yahay dulqaad nabad ku wada noolaashiyo iyo wax wada qabsi qaran iyo mid caalamka afar unkid dawlad wanaag ku dhisan hay'ado madax bannaan daah furan yoolna u yahay sareynta sharciga shan dhisidda hanaan adeeg bulsho oo muwaadiniinta ka haqabtirta baahida asaasiga ah lix xoojinta iyo sare u qaadida doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda iyo horumarka bulshada toddobo hirgelinta siyaasad lagu horumarinayo fursadda waxbarasho xirfadda shaqo abuurka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee dubdhaxaadka u ah ayaha qarankeeda inta kadib xisbiga awoodda shacabka himiladiisa waa hirgelinta aragtida cusub si aan wax uga bedelno wacyiga iyo waaqiciga qarankeena maanta ku sugan yahay bog cusubna ugu furna jiilka soo koraya si ay uga mid noqdaan loolanka asaagooda caalamka una horumariyaan dalkooda hooyo inta kadib waxa su'aalo badan ay ka taagan tahay marka la gaaro xilliga kala guurka ee siyaasadda taana waa wax iska caadi ama dabiici ah in bulsho ay soo wajahdo xaalad walwal ah xilliga kala guurka siyaasadda gaar ahaan marka aysan hay'adaha dawladda si daah furan kalsooni loogu qabin hase yeeshee waa muhiim in bulsho iyo hoggaan aan wada fahansannahay in dawladnimadu tahay ismaamul ku dhisan heshiis bulsho la isla ogol yahay
xeerkana xeendaab u yahay. Hirgelinta iyo isgaarsiinta himilooyinkaas waxay u baahan yihiin aragti iyo dadaal aan ku ilaalino kuna barbaarinno inta aynu maanta haysanno, isla markaana aan horey uga sii wadi karno socdaalka dheer aynu ugu jirno gaarista halka aan hiigsanayno. Haddaba si taa loo hubiyo, waxaa dhammaan hogaamiyaasha heerar kala duwan ee dalka waajib ku ah inay dhowraan heshiiska bulshada isla gaartay, dowladnimadana ku ilaaliyaan xayndaabka sharciga. haddii aan ka hadlo arrimaha hadda taagan ee doorashooyinka, maanta waxaa horumar ah in Soomaaliya ay ka hadlayso sharci doorashooyin, in golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed laga ansixiyay sharci doorashooyin uu sugayo aqalka sare, kadibna madaxweynaha uu saxiixo si uu sharci u noqdo. waxaan isxasuusinaynaa dhammaanteen maanta halka aan joogna oo marka ay noqoto inaan ka hadlayno sharci doorashooyin oo uu dalka leeyahay waa runtii horumar wanaagsan. balse sharcigaas doorashooyinka uu dalka leeyahay ee laga soo wada shaqeeyay, xisbiga awoodda shacabka wuxuu ka aaminsan yahay aragti ahaan in ay muhiim tahay inay ku dhacdo doorasho sharciga waafaqsan, shacabku cod yeesho, kuna salaysan nidaamka xisbiyada badan, waqtigeedana ay ku dhacdo sida dastuurka uu qabo. sidoo kale wuxuu xisbiga awoodda shacabka soo jeedinayaa in marnaba wax sharciga ka baxsan aysan doorasho u noqon dadka Soomaaliyeed. Soomaali waxaa deeqda wax sharciga waafaqsan oo dhammaantoodna gaarsiin kara horumarka ay hiigsanayaan. waxaan mar labaad soo jeedinayaa oo xisbiga awoodda shacabka uu soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya afka magaca xisbiga awoodda shacabka in maamulka doorashada ay noqoto mid daahfuran u suurtagelisa muwaadinka Soomaaliyeed in uu doorto cidda uu doonayo, si meesha uu hiigsanayo qarankeenana uu la hiigsanayo uu u gaaro. haddii aan si kooban uga hadlo arrinta wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya, wuxuu xisbiga awoodda shacabka qabaa in mar waliba lagu saleeyo in ahmiyad weyn ay leedahay wadahadallada ka dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland. taa waxay sal u tahay, aasaas u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxay hiigsanaysaa inay wada gaarto. sidaa darteed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku baaqaynaa in wadahadallada ahmiyad gaar ah la siiyo, dadka ku howlan hawshaasna mar walbana la fahmo in wax walba lagu gaari karo wadahadal oo aan joojoob iyo qasab iyo wax kale waxba lagu gaari karin. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan halkan baaq ugu diro oo aan iraahdo xisbiga awoodda shacabka uma taagna dan gaar ah, qof gaar ah, xisbi gaar ah, deegaan gaar ah. xisbiga awoodda shacabka sida magaciisa uu ka turjumayo wuxuu u taagan yahay shacabka Soomaaliyeed oo kaalin ku leh. sidaa darteed taladaada, tusaaleyntaada, fikirkaaga, aragtidaada waxay noo tahay muhiim. xisbigan ma ahan xisbi qof gaara u shaqeynayo, deegaan gaara u shaqeynayo, dan gaara u shaqeynayo. waa xisbi aasaasidiisa uu yahay mid ummadda u shaqeynayo.